وهجاج تضبط كي هراء وح أي دولة الصومالية بندو هبين كيها كسر ركتي مجال مقدشو دولة يا شيكتي إن صحفيين تو أي كمديهن شقالها مهم كأي أنو بندو جاسي سامين كيولن دونين هذا بوريال كترسن إذا عدى شبله أي شيء إن حالي حرق يجردلو جستي دجمة هذا مقدشو ورك صحفيين الصومالية أي فالكاسي عمباري وهذا بخدك توس وجود جرتا فاطمة عبد القادر حسن أو كمد أهيد وريال شيء إن حالي لبكاسي وسوغاري فاطمة هدي أد مقليسو سودو بل إنه شيء وحي حالي داعي حالي سيدابي وحو داعين محمد عبد الحراري هذا ومهسنت هاي أديك يو أصحابتك بي بي سي دا مركلنا واد مهسنتين وها حالي داعي أنيجي يو bah shaqo wadaagana hay shabakada warbaahinta Shabeelle ka shaqeeya waxaan ka ambabaxnay xarunteena si aan guryaheena inuu aadno oo aan u riyaadno maadaama magaalada Bandow ee dawladdu ay soo rogtay oo ah inuu jiro cudur laga taxadiray Mareykan COVID-19 waan baxnay gurigeena aadna markii shaqada inoo dhamaatay laakiin waxa dhacday anagoo meel dhex marayna in shaqo la inoo soo sheego kadibna inoo suurta gashay inaan meel dhow aan taaganahan ka soo laabano oo xarunteena dib ugu soo laabano si aan qalabkeena u qaadano oo u aadno halkii ay markaasi wax la inooga soo sheegay waxa jirtay xarunteena inta u soo soconay isgoyska shaqaalaha waxay markii la soo dhaafo xaaji baasto ah meesha markaasi ay ka tirsan tahay degmada Hodan inay joogeen ciidamo dawladda federaalka Soomaaliya ka tirsan gaar ahaan kuwa sida gaarka u tababaran ee haram cad kala yiraahdo ayagoo kooxa ah waxa dhacday aniga iyo tiimkii kale nala jiraba in waxba su'aalaha aan la weydiin ay toosh indhaha nooga qabtaan si xunna markaasi ay noola hadlaan ayaguna weydiin kara cidaan nahay iyo meeshaan u socono waana ognahay inuu Bandow jiro laakiin saxaafadu kuma aysan jirin mana ahayn dadka markaasi uu Bandowga qabanayay waxaan noola hadleen si ayagu naftirkooda qaab darro ah anaguna markaasi waxaan sameeyno waan ka aamusnay markii dambe wiil anaga naga tirsan oo wariyaasheena kamid ah bay hadal isdhaafsadeen waliba hadalka isdhaafsadeen ma ahayn hadal qaldan askarigaana si qaldan wiilka wax u weydiiyay kadibna waxa dhacday in wiilka askariga uu naga dabaymaado oo gacan qaad u sameeyo wiilkiina la jiray oo waliba toosh oo ku dhuftay waliba qori baadkiisa u raacsana Faaduma aad iyo aad ayaan ku gartay inta aanan ku weydiin bal inaad arrimahaas la socodsiiseen hay'adaha qaabilsan iyo inta adinku wax la idinku garan karo inaad wariyaal ahaydeen ma sidateen markaas ciidanka idin qabanayaan adhikaaraha sidanay adhikaaradii waliba xarunteena ayaan sidanay ee shaqooyinka dabcan hadii ayna weydiin lahaayeen cidaan nahay adhikaaradena waa tusilhin laakiin Maxamed ma aysan dhicin intaas bayna weydiiyaan waxay nagu bilaabeen si xun u hadal iyo hajuub waxa dhacday in wiilkii saddex qof lagu tumo anaguna ay dhacday inaan ka qabto wiilka dadka tumaye laba kamid ah askarta midna inuu ay kala tuuray oo qoriga baadkiisa ugu kala tuuray waa ka xumayna intaasi oo dhan dhacaan laakiin BBC-du ma xaqiijin karto xajmiga falkaasi uu lahaa iyo sugnaantiisa labadaba maraan isku dayno inaan la xiriirno sarkaalka eedayntaasi ay ku socotana nooma suurtagelin haddii aan su-aasha ugu dambaysa ku weydiiyo Faadumay waa sidee qaabka wariyaashu ay u shaqeeyaan magaalada Muqdisho xilligan uu jiro faafka fayraska corona degdeg waad mahadsantahay Maxamed mar kale wariyaashu run ahaantii horta sida la yaqaan marka Soomaaliya laga hadlayo qaabka loo shaqeeyo iyo sida ay u shaqeeyaan waa waxa idinkuna aad ka dharagsantiin anaguna aan ka dharagsanahay si markii Soomaaliya loo fiiriyo marxaladii anaga ku jirna waxa laga yaabaa mararka qaar in dhibaatooyinka ugu badan xagga ciidanka ah ay naga soo gaaraan ayagoo oo markaasi talooyin ama isdhihi karno dadka ayaga maamul ay ka sareeya in aysan ka dhaadhicin in wariyaashu ay yihiin dadkan lagu xadgudbi karin laakiin waxa dhici karta in taliyaasha iyo ciidamaduba ay yihiin kuwa kala socda oo aan isku mowqif walaal u mahadsantahay waqtiga ayaa naga soo gabagabay Faaduma mahadsanid Thank you